آدم خطيبي وفريق زود التلانيقة مقالة فرنسية ورك جرون كشك ما تعرف سوق هذا بشيء تاي ثمانية تضو بشيء كوباد لباتن يأفر ورك جرون كشك وحروا أنا كسوق مانتا ومتى الصوماليات إن سؤال ويديو صوماليا وحكر السنة ما دولة با مس وميل دad gaar ay leeyihiin Soomaaliya waxa ka dhisan dawlad maaha Soomaaliya waxa ka dhisan waa wax dad ay leeyihiin nin kasto madaxweyne laga soo dhigo wuxuu aaminsan yahay inuu meesha iska leeyahay oo sidoo asiga rabo oo ugu takrifalo marka qofka meesha yimaado oo madaxweyne laga soo dhigo ushiisa iyo cimaamadiisa garabka asaa saarto wadankaasna sidoo asiga rabo ayuu u wadaa markaan su'aal idin weydiiyo xasan sheekh 2 sano ayuu hadda joogaa oo bilo dhiman waxaan rabnaa inaad noo sheegtaan wuxuu ku soo kordhiyay wadankan waa markaan runta u wada hadlayna waaye sheekada inay ku wareegaysato ma aha in oo shabaab la dagaalamayo shabaab nin kasto wadanka yimaado waa ku qasban yahay inuu la dagaalamo maxaa yeelay hadduu la dagaalamin shaqadiisa aan soconaynin ummadii dhibaato haysataa marka waxaan rabnaa marka dawladda maanta dhisan ee xasan sheekh waa yimid markuu yimid asigoo og wadankan 4 sano iyo 6 bilood hore u soo xukumay dhibaatada meesha ka jirto og ayuu hadda yimid wadanka inay dhibaato ku sii kordha maahane wax u soo ziyaadi male su'aasha idin weydiina waxay ahayd war xasan wuxuu joogiyaa 2 sano oo bilo dhiman wadankan muxuu ku soo kordhiyay wadankan hab dhaqankiisa muxuu yahay sidiisaba wadankan anaga Soomaali leeyahay xukunka ummadda Soomaaliyeed ay haysatay is xukumaan muxuu yahay waa republican waa wadan in la soo doorto baarlamaankaas oo doorto madaxweynahaas oo doonto ra'iisul wasaarahaasna oo doorto wasiiradaas iyo ra'iisul wasaarahana ay noqdaan kuwa dawladda hogaaminayo oo lagu xisaabtamayo baarlamaankana looga baahan yahay inuu noqdo kii xisaabinayay sharciyada dejinayay wixii la bedelayay wixii la suubinayo wanaag ana keenayay madaxweynahana waxa waaye ninkii ilaalinayay sharciyada dhan iyo dastuurka xasan sheekh maxamuud wadanka markii madaxweyne looga dhigay diyaaradda kuris ku bilaabay ilaa hadda diyaaradda kurooya wax uu soo siyaadiyay hayraatay ma jiraan baarlamaanka maxaa looga baahnaa in ay madaxweynaha u yeeraan mase sharci dejinta maadaama uu yahay baarlamaanka uu yiraahdo war nidaamka aan ku socono muxuu yahay madaxweynaheena nidaamka uu ku shaqeeyo muxuu yahay ra'iisul wasaaraha nidaamka uu leeyahay uu ku shaqeeyo muxuu yahay nidaamkii la kala saaro si loo dadka macnaa ay ugu xisaabtamaan baarlamaanka waxaa laga rabaa in oo sharciyada wanaagsan ee wadanka lagu hogaaminayo oo dedejiyo xasan sheekh abeena oo yimid maxamed cabdullaahi farmaajo asoo waqti ka dhamaaday har door raba dhiso maxamed cabdullaahi farmaajo markuu meesha ka tagay waxaa jirtay maxkamad oo macnaa dastuuriga ah oo rag u doortay iyo wuxuu sameeyay guddiga musuqmaasuqa xasan sheekh abeena oo yimid waa burburiyay wixii dhammaan waa tuuray maahan inuu tuuro haddii ninkii ka horeeyay oo si qalad wax u suubiyay inuu ka bilaabay ahayd maxkamadda dastuuriga ah oo si wanaagsan u dhiso waxay ahayd inuu guddiga musuqmaasuqa oo sameeyo oo si fiican u dhiso si asiga looga maarmo ay guddiga musuqmaasuqa ay sempre wixii musuqmaasuq suubiyo way ka madax banaan yihiin dawladda ay soo qabtaan maxkamadda dastuuriga ah waxyaalaha la isku qabsado hadda jiro kale sidii xasan sheekh inuu iska dalbaday inuu rabo inuu sameeyo 2 xisbi iyo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne inuu meesha ka tuuro oo rabo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen inuu suubsado oo amoodo suwo sidoo asiga rabo inuu u dhaqaajiyo oo rabo inuu sameeyo
maxkamadda dastuuriga ah wax kasto oo khalad oo yimaado macnaha way diidaysaa example markaan u soo qaato dowladda nagu dhagan ee Kenya madaxweyne dhan la doortay ay tiri waxbaad xaday waxaad ma shaqaynayaan waa shaqaysi doorasho lagu noqday ninkii la tartamay ayaa diiday saas oo ku noqday madaxweyne ninkii meeshaan hadda laga bedelay oo madaxweynaha ka ah Uhuru marka waxaa la rabaa wadankeena nimanka la leeyahay baarlamaanka golaha shacabka ayagaa looga baahan yahay inay noqdaan dad active ah ee u soo taagan wadankan qalad inay ka qabtaan xasan sheekh markuu waxaan bilaabay aan qayla bilownay cajalayaashii aan duubay fiidiyoyaashii aan duubay dib waa lagu noqon karaa annaga waxaan rabnaa wadankaas inuu wanaagsanaado annaga lacag kuma raadino wax kuma doondoonno fiyuusi inaan helno uma baahnin laakiin waxaan rabnaa wadankaas inuu tooso markuu xasan sheekh socod bilaabay oo qalad bilaabay ayaan kala hadalnay wadankan nidaamka aan leenahay oo u dhisan yahay waxa waaye ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada waa inay shaqeeyaan wax alla waxay keenaanna mase heshiis ay soo galaanna waa inay baarlamaanka geeyaan baarlamaanka waa inuu kontroolaa haddii wixii wax wanaagsan ay yihiinne ay gudbiyaan madaxweynaha u gudbiyaan haddii waxa ay wixii xun ay yihiinna meeshaba ka soo celiyaan madaxweynaha markii loo geeyo haddii labadooda khalad ay isku raaceen madaxweynaha oo fiiriyo haddii wixii ay wanaagsan yihiin oo gudbiyo haddii dulduleelo oo ka arkanay oo soo celiyo madaxweynaha shaqadiisa asigaa sheegay xasan sheekh maxamuud in ay ka bilaabato ra'iisul wasaare inuu waxeeyo iyo dastuurka inuu ilaaliyo hadda xasan sheekh wadanka asaga kaligiisa dowlad ka ah bay Soomaaliya problem kasta ku sheegaa Soomaaliya problem kasta wax waaye hadda dowladan maanta noo dhisan afar nin ayaa ka taliso wasiirada lagu sheegay ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaan iyo aqal sare iyo waxay yihiin male afartan nin oo wadankaas ka talisa maanta wax waaye ninka la leeyahay Sheekh Maxamuud Mahad Salaad iyo wasiirka TikTok iyo ninka la yiraahdo Bukhari waa afartaas ayaa maanta hore i gadaal u wadato dowladda wasiir TikTok arrimo badan lagu sheegay waxyaalo badan la yiri waa nin awood leh wadankan afartaas nin hoos waxa ka wado imaaraadka hadda bishii la soo dhaafay ee December 7deedii heshiis oo la galay Ethiopia oo ah macnaa amniga xataa badaha inay noo ilaaliyaan haddii waxaana la isla ogeyn inay amni badigaha laga ilaalinayo see ku dhacday baarlamaanka maalin horaato way buuqeen waxay dhaheen dastuuradii wixii lagu heshiiyay hala keeno warkii waa la baabi'inooyaa second dowladda Ethiopia warkeeda waa cadaysatay maadaama ay cadaysatay waxaa la rabaa dowladda inay tallaabo qaado waxaan rabaa example yara idin siinaa aniga dadka waxaan ka mid ahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka soo horjeeday sifadan uga soo horjeedinay markuu wax fiican suubiino waa Soomaaliya iyo ahay waa walaalkay haddii oo waxyaalo aan ka dareemayay aan ka soo muuqdana waa ka yuro jirnay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin rag u ahay waa in loo qiraa ninka geesiga ah wax uu sameeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia iyo Eritrea iyo asxaab oo lahay iyadoo asxaab la tahay oo la ahaa ayaa Kenya iyadoo badda aan isku haysano ay waxay damacday Kenya inay iswaafajiso konfiinka ay dhisaysay iyo badda ay leexsatay inay iswaafajisay rabtay ay darbiga inay ka soo bilowdo meeshaas ay Soomaaliya soo dhaxmariso ay darbiga ku leexiso markay darbiga ku leexisana ay tiraado xuduudkayga waa kan sidii Israa'iil oo kale shacabka lagu diray shacabkii aan dhagax yeeyeen buuqa ka dhacay markaas anaga ciidamo badan oo meesha aan geysan iyo dagaalkaas laga bixi karin farmaajo aqliga suubiye farmaajo aqliga sameeyay waxay ahayd Kenya wuxuu yiri idab daro dadka ilaalinaysa sanay suubinaysa xiriirkii u jara jaf diyaaradaha kor ma soo mari karaan oo yiri jaf war meel kasto oo kaga keenay
si uu dhulka jidkaas macnaa dhismihii uu u soconin farmaajo waa ku najaxay jaadkii uu joojiyey dhaqaalihii uu cunaqabatay waxbuu ka suubiyey hadda ninkan la leeyahay xasan sheekh maxamuud haddii arrintan waxba ka ogeyn oo macnaa ninka la leeyahay muuse biixi iyo asaga iyo ninka la leeyahay ismaaciil cumar geelle waxaan yaalahan ay ku dhex jirin ay waxyaalahan wax ay ka ogeen waxaa la rabaa waajib ku ah sidii farmaajo oo suubiyey safaaradii waa naga raacdeeyey baxuu yiri safiirkiisa soo ceshtay xuduudkii oo gooyey diyaaradihii na dulmaraya waa joojiyey diyaaradihii Ethiopia oo Kenya imaanaya waa joojiyey اسمه نساسه كجوكسده بدون مشاكل alors حسن شيخ هذا wax uu joojiyey ma jirto diyaaradii Ethiopia sidoo yimaadaan safiirka wuxuu noo dhex degan yahay oo noo dhex degan yahay bila Soomaaliya gudaheeda noo dhex degan yahay waad maqlayseen gabadha khayr Allah siiyo aqalka sare u qaabilsan macna arrimaha dibadda u qaabilsan aqalka sare ninka cali balcad la leeyahay u gasho dhulka ku jiido dhulka ay ku jiido dhulka wallahi billaah hadalka ay tiri kaliya waa ku istiraxna ku iri sida loo galay waxaan ku iri door biyo ku dhacdo noqday wuxuu ahay xataa male si ay u gashay gabadhaas waa gabar Soomaali ah hadda ka hor xataa waxay u dacwoonaysay u qeylinaysay ummadda dadka Soomaalida korontada ka qeylinaysay waxay tiri anigu xildhibaan haddaan korontayaasha xataa haddaan damiyo lacagtii lacag badan la iikeenay u tiri haddaan daarin ay tiri oo damiyo lacagtii lacag badan la iikeenay tiri war shacabka say u dhiibi karaan lacagtaas ay tiri inta ka keenayaan waa dadka loo boobay waay marka xildhibaanada waxaan ka rabnaa anaga waxay meesha u fadhiyaan inay dadkooda ilaaliyaan waxay meesha u fadhiyaan wadankan la boobay inay dadka boobay ka dhiciyaan waxay meesha u fadhiyaan war dadka guryahooda iyo dhulkooda boobayo xaqa u leedihiin xildhibaanaad tihiin inaad meesha keentaan sakan xildhibaanada waxaan rabaa inaan u sheego annaga markaan wax idin soo tilmaamayno waxa soo socdaan dareemaynaa waxa idin sheegi jirnay sharcigan niisa ay keentay yaan la saxiixin ha ogolaanina maxaa yeelay sharcigaas aad arkaysiin waxaa keenay mahad salaad iyo waxaa keenay ninka la leeyahay xasan sheekh maxamuud iyo buqaari ayagaa keensadeen waxay u keeneen waxay ahayd in dadka sanka looga duro nin alla ninkii in la boobal rabo lagu tiimbareeyo artikolyaal been ay suubsadeen eber 3 qodobkii labaad nambarkiisi yahay eber 7 48 waxay iska soo qorteen artikolyaal ay soo qorteen boy xataa ka dhigaan ku eribo sirdoon waaye sirdoon waxaa la rabaa haddii nimanka la leeyahay hormuud waddankan ayaga dowlad ka ah markay dhaqaalihii oo dhan ay haystaan taleefanka raqamkii miftaax u ahay ayaga haystaan wax kasta gacantooda ku jiraan maanta haddii banuugta iyo ABC iyo haddii xirtaan waddanka dhan waa iska hor imaanaa boy ninkii inuu caqligiisa shaqeeya la rabaa ninkii maadaama uu xaniyaha ka haayo haddii aad meeshii xaniyaha kaaga hayo aad gacmaha kasii xirtid gacmaha kaaga furi lahay xaniyahaadii waa haystaa ninka wuxuu kaaga furnaya adaa ka xirti haddii bangida iyo xafiisyadii aad xirtid lacagtii dhaqdhaqaaqaysa aawad halkii aadee marka hore caqli suubi macnaa wax dowladda looga baahnaay dhaqaalaha iyo taleefanada iyo wax kasta dowladda ay leedahay korontada iyo biyaha iyo aeroboorada waxaasoo dhan dowladda inay gacanta soo gashtaan rabaa haddii dowladdii wax kasta ay brivaata ka dhigayso wax kasta ay shirkad ka dhigayso ay rabta lacag ay daldalato oo dadkaba loo naxaynin dambigaasoo dhan waxaa iskale baarlamaanka waxaa laga rabaa xasan sheekh iyo nimanka oo wato oo milkiilayaasha habkay u dhaqmayaan inaad wax ka qabataan ma aha xasan sheekh sidoo rabo inuu wali wax u sii suubiyo hadda shalay sharciyadaanaas la keenta u siixdeen hadda idinkoo xildhibaanaha qaylinaysiin waa buuqaysiin baaqu wasaana yeelaynaa bararaq waxa yeeli kartiin male waa idin xiraa wallahi maanta loo idin xiraa
ninkii awood ninkii waddankan dhan xoolihiisa haystay ninkii xafiis inuu ka xiray meel ka xiray qof u dahaya ma leh marka waddankan waa waddan ninkii yimaado hadda maamul goboleedyada madaxweyneyaal ay leedahay ayagaa u taliyaan lacagta jeebka iskaga shubanayaan wax xisaabiye ma leh lacagaha loo shubo lama xisaabiyo war lacagtii aad qaadatay 4 milyan aan ku siinay 4 milyan see u konsumaaraysay see u baxday xisaab celin ma jirto meel kasta waa sidaas marka baarlamaanka waa dhibaatadoo dhan baarlamaanka waaye marka maxaa loo baahan yahay war ummadii waa dhibaataysan tahay waxaan ku yiri waddankii dhulka la iska xoogaa nin dhul waxaa lagu leeyahay yaabka xamarka yaalla maanta dhul oo damanyaala ah oo warqadiisa yaalaan dacwo la gelinaa dacwada markuu ninku ku raay waxa leeyahay waa naga reesiye ayee halkoo boos nasiibo halkoo boos aan rabnaa dowladda yaa ku jiro 4 nin oo walaale ah 4 nin oo walaale ah oo ilma adeer ah dadka ayaga xoogayaan waa isu kaashanayaan xasan sheekh waa ogyahay musuq maasuq aan ka hadlayna uu leeyahay musuq maasuq ka hadlay ma waddankaas dhibaatada ka jirta dad ogaaleedeen waan ogtihiin oo anaga dibadda joognaa wax kasta na soo dhacaan haddaa idin sheegnana qawmaysaan shalay waxaa iniri war hala siixin odaygii muuse suudaha ilaahay khayr ha siiye waa ninkii ka dooday oo ka hadlay asiga kaligiisu ah iyo ninkii wariye ahay macalimo iyo rag kale ka doodeen maanta meesha idin la maraysa arka aniga hadda waxaan idin leeyahay 2 sano dhiman 2 sano xasan sheekh lugaha iyo gacmaha laga xiro madaxweyne waa kursigaas ku fadhiisto dowladda hab ay u shaqeysaa la suubiyo nidaam oo yaab leh la sameeyo haddii kale waddankan dhibaatadiisa sidaanay sii ahaanaysaa annagana waxaan qarin doonaa ma jiraan wax kastana waa soo sheegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu